صدح قيامها إلهي لما هضمه وما طاهريه وعذاب كلول بيلي صدح داني وامحي وصدح قف أو وحي اللي قفل لي وحانه الليمي نبغى حلي شيخ زان oday zinaystay oday dhowrsanay baa laga filayay inuu dumarka u arko carruurtiisa iyo hablihiisa iyo kale inay la mid tahay inuu dhowrsanaada laga filayay shahwo eridaana ma hayso walidaalka isagoo daadaasa haddana haddii loo taag waayo kaasi kuwaan aakhiro guulaysanayn buu ku jiraa shaykhun zaan buu nabigu yidhi wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wacaa'ilun mustakbir buu nabigu yidhi midaan faqiiroo waxba haysano kibray dee nin dawlad haysta iyo madaxa iyo lacagle iyo kuwa kibirka waa laga filayaa faqiir hadduu kibro ka war nimaan waxba haysanin hadduu kibro isqaadqaado kaasina waa waxaan loo filaynin kan waa laga yaabaa nebigu ilaahay qur-aanka waa ku tilmaamaya kallaa ina alinsaana la yadqa an ra'aahu istaqna bini aadamku waa qooqaaba ilahay waa kibraa markuu arko isagoo kaaftoomay isagoo amarkiisa wuxuu yidhaahdaba la fulinayo ama wuxuu doono samayn karo lacag haysta laakiin midaan waxba gacantiisa ku jirin oo faqiir hadduu kibro kaasina waa mid subxaana leh idan waxaa la tilmaamayaa waxa cagsigiisii inuu yahay acmaashu hadday ka madhnaato mubtilaadkana way ka fiican tahay acmaashii nawaaqista iyo mubtilaadku la socdeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa baa ilahay kuwa iimaanka laga helayo sadaqooyinkiina ha ku borinina bilmanni waladaa mannigu waa manna sheegasho gallad sheegasho berigii caynkaa waanigii wax idin siiyey berigii caynkaasa waanigii caynkan yeelay kuwaa soo baahan intaasaan siiyey waxaaga haddaad ku manno sheegato camalkii wuu burayaa ajarkii heli maysid haddaad adaa ka dabageyso wax dadka dhibayana eraya xunxun iyo maag iyo wax haddaad ugu darto qofka adigoo wax siinayabana iyana waa kaa duminaysa acmaasha wax badan oo buriyaa jiro aan riddo ahayn مثلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون علماء waxay leeyihiin riddo maaha laakiin waa muxbit lilcamal مثلا salaadii casare laga tegey waa kii nabigu tilmaamay maalinta camalkeeday burinaysaa riddo maaha bay leeyihiin qolada aan qabta inaanay tarku salaa inaanay kufri ahayn mid iyo labaadii laga tago inaanay kufri ahayn qolada qabta waxay leeyihiin riddadii maahay waxa weeyaan maxay ومبطل للعمل ومن مبطلات العمل إذن وحين تلمامينا أعماشا صالحات سبيسا كلما اتكفقوا يسير ذروبتا إيا وحيابها كالنا إيانا ووح عمل كأجر كي لغا هليه بدية وحيابها بدية وحكم دبا علماء إلى فضيلة اجتماع الأعمال بعض الأعمال هداد مالين اسكو سميسو أي كلمان iyana way tiro bataan maxaa ka mid ah haddaad waa barisato adoo sooman maalin hadday isugu kaa kulmaan soon iyo miskiin aad quudiso iyo janaaso aad raacdo haddaad kulmisato soon iyo janaaso aad raacday iyo miskiin aad quudisay iyo qof buko aad soo booqatay afartaa camal haddaad maalin kulmiso nebigu wuxuu leeyahay qof kuma kulanto ilaa maalinta qiyaame waxaa lagu yidhaahdaa jannada albaabadeeda kaa doonto ka gal maantaad soomanayd adigoo sooman baad janaaso raacday xabaalahaad geyso waad soo aastay waad soo noqoto dhakhtarka ama guriga mid yaalloo bukay baad soo booqatay miskiinna waxbaad siisay afartaa camal hadday maalin kuu kulmaan aad kulansiisato nabigu calayhi salaatu wasalaam subax buu wuxuu yidhi man asbaxa minkum alyawma saa'ima war maanta yaa sooman أبي بكر بايدي أنيقا مركز النبي يقول ما أنت يا راعي من طبع منكم اليوم الجناسة يا جناسة راعي أبي بكر بايدي أنيقا ما أنت يا مسكين وحسيين النبي يقول أبي بكر بايدي أنيقا ما أنت يا صاب وغضب ولقف بك أبو بكر بايدي أنيقا مركز النبي يقول ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة مركز اللي يدي أبو بكر ضد وفضل بدنا عدنا ما هدي بلا شماها وحلقوا فضل بطايا وإيمان أعمال
acmaal ay samaynayeen dadka kaliya u feejignaayeen weliba culamada badh baa waxay idhahdaan salaad subax baa su-aalaha la isweydiinayay salaad subax intuu ku soo socdu intanba soo sameeyey idan ayuha alxiba waxaynu joognaa bil ramadaan waxaynu u baahanay inaynu acmaasheenna tiro badino kow siday u kala fadli badantay inuu ugu dadaalno ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu acmaasheennaga aqbalo siday u kala fadli badantayna inuu ina waafajiyo bishaasi intuu dembigooda dhaafay inuu inagu daro intii naarta laga xoreeyey inuu inagu daro intii camalkooda la aqbalay in alla subxaana wa tacaala inaga yeelo inaga iyo inta muslimiinta ee kaleba inteennii dhimatayna in ilaahay u naxariisto inta noolla alla uga daba naxariisto wixii xaq iyo sawaab ku jirana in ilaahayna wada waafajiyo wasala allahuma cala nabiyi muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin